marka horeeto inaan soo dhaweeyo shirweynaha bulshada bariga Afrika oo lagu qaban doono magaalada Muqdisho. Shirweynahaas oo ay soo qaban qaabisay jaamacadda Simad iyo Chamber of Commerce iyo ururo kale ay soo qaban qaabiyeen. Shirkaasi oo aan rajeynayna in wax badan oo macno leh ay ka soo baxaan, ay ka soo qayb geli doonaan ganacsato badan oo waaweyn oo maalgashi ah oo maalgashi dalkeena raba inay partner la sameeyaan, ay ka soo qayb geli doonaan. waxaa imaan doona ururo waaweyn oo danaynaya dalkeena inay wax ka maalgashtaan oo u baahan in ay partner ka helaan dalkeena. sida la socotaana anaga Chamber ahaan East African Chamber of Commerce Soomaaliya member ayuu ka yahay. maadaama member aan ka nahay bulshada bariga Afrikana aan rabno in aan aad soo qabsano barnaamijkan oo ahaan doona barnaamij aad u soo bandhigi doona maxaan ku raahdaa wax soo saarkeen dalkeena iyo waxaan ku raahdaa waxyaalan u baahannahay iyo wixii aan rabno inaan ganacsataas la qabsano oo ganacsatada Soomaaliyeed ay isu diyaarinaysaan rabnaa barnaamijkaas inaan ganacsata ahaan inaan kala qayb qaadano. waxaan rabaa marka inaan bogaadino jaamacadda Simad oo barnaamijkan soo qaban qaabisay iyo ururada kula jira. waxaan kaloo rabaa inaan bogaadiyo mas'uuliyiinta ama waxaan ku raahdaa mas'uuliyiinta rugta ganacsiga ee ayaguna barnaamijkan qaybta ka ahaa oo xil saarnay inay shaqadaasi qayb ka noqdaan. waxaan rabaa inaan ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqo in barnaamijkaasi oo socon doona 24 iyo 25 bishan June in ay si mugle uga soo qayb galaan, ayaga oo waliba ay dhigooda ay imaan doonaan oo dhigag badan oo kala nooc imaan doonaan oo inay la falgalaan diyaar u ah, wax badan oo macluumaadna la kala faa'iidi doono. ganacsatada Soomaaliyeed waxaan rabaa barnaamijkaasi inay u diyaar garoobaan kana soo qayb galaan shirweynahaasi oo aan anaga Chamber ahaan aan qayb ka nahay. waxaan rabaa marka in aan barnaamijkaasi si farsamo badan oo macno badan aan uga qayb qaadano, dadkaasna aan ula partner garayno oo aan ka helno dad isla falgala inaan helno insha Allah haddii la yiraahdo. ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii maalgashi badan dalkooda ku sameeyay, runtii haddana maaragtay si mugle oo wadanka kor ugu wada, waa u baahan yihiin inay helaan partner dibadda ah. ganacsatada Soomaaliyeed ee dibadaha jirtana waxaan ugu baaqaynaa wali waqtigan haysanaa inay ka soo qayb galaan shirweynahaasi si aan barnaamijkaasi aan anaga dhan aan ugu midowno, aanan gacmaha isu qabsano si dalkaana aan u horumarin lahayn. hadday noqon lahayd dhinaca korontada, hadday noqon lahayd dhinaca warshadaha, hadday noqon lahayd dhinaca kalluumaysiga, hadday noqon lahayd dhinaca beeraha, hadday noqon lahayd dhinaca maaragtay wax soo saarka dalka oo hore ugu dhisnaan jiray oo beero kalluumaysi iyo xooluhu ay kamid yihiin iyo tiknoolajiyada oo hadda aad u soo korortay. waxaasoo dhan waxaan rabnaa marka inaan si macno leh aan ugu diyaar garowno. sector walba waxaan ka codsanaynaa shaqada oo hayo iyo cidda uu u baahan yahay inuu la falgalo iyo bolabiyo barsteeshinada ay heli karaan inay u diyaar garoobaan inay barnaamijkaasi ay partner kala helaan meeshaasi. wuxuu noqon doonaa sida aan rajeynayno oo hadda aan jaamacadda Simad iyo ururadas kaleba aan uga ballanaba sanad walba in la qabto insha Allah haddii la barnaamijkaas.